يجيو ومدى الصومالية قفك من إنه سبعين قريب إنه سنين قنبو إنه ضعيف من أقوى سنوراده تاشي شيئا ورشاي وكاسوها مبادئ العاي كاسها مركي آناركي أليق وضدك يجي تقوى وضدك يجي ورغبحي ودونينا أنكو رحين هل تاكو ملكية عني وكمالي باوس كمالي وقورو كمالي وحوال مالي محايا إنتا ميتان كتبي وانتان كرمات أنا markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay qaabka ay u shaqaysay kaalka ayaa la iga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaana la ila dhaqmay waa la iga soo qaaday muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaana la ila dhaqmay markii aan arkay iyadoo intii la iga duubay oo indhaha la iga xiray anoo cagacad oo qaawan la igu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iga cadaysisay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa dalabka xuduudda ruuxiga maahan bay dhamaynahayd waa suuragal markii aan arkay intii la iga soo dejiyey aan qiyaasay in sawirka laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyey markii la geeyey goday ay isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumay oo goday joog laanta markay ugu qabsadeen aflagaada markay iimiseen say caayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xiran oo cagaha ka oo indhaha ka xiran oo gacmaha ka xiran waxaan aaminay inaan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaan dal lahayn waxaan arkay oo isii arxamadi waxay iga baaday arrintaasi waa yuuga aad waxaan ku barahay waxay iga baaday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshan hal mar wada dhaqaajiyay oo hiil iyo hool ila garab taagan arrintaasi iga baaday runtii waxa ii muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatada waxa ii geysatay inay ahaayeen ashxaas dambiir aan lahayn ashxaas shaydaan u hoggaansatay iyadana waxaa u furan inay toobad keento waxaan howlahooda uga hadli doonaa markale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waa xamaasadaysnahay waana laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdhaco waxaan markaan ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe wixii dardaarana iyo waxaan aan ku shaqaynayay iyo habka aan u ballanqaadi doono waxaan sii wadanayaa mahadcelintii waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto oo iyaduna qaadatay door aad u weyn oo gaarsiinaysa dhammaan shucuurta Soomaaliyeed qarba xaaladaydu halka ay marayso iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliya ku hadasha waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa lambar 5 waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo uguna mashaqaalay xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu dhaqmay ee isbedelka ee u soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan afku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaqa iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahay halkaa inuu ka sii wado inkastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiintii kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo oona isugu xidhnay habku ula dhaqmay ay habku u sii daayay sidoo u maamusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku u sii daayay isagoo cidina tala ka siinin isagoo cidina wax qorshaha ka siinin
عند كريه ويشاقي رجع يجا كميلا معها السجع ويشاقي هو شيء ما كان وحكوا يدي وهو حالن يعني أنت هذين بدل يوسع العليلي مرة مسيك كفور عن سجعين وهو هذا يقول يا محمد ولي هذا الله العينية فرصين وحد مدعين وشاف في عقاب سياسيين هي ملاحظة سيدا يوجه اللهيين وعن لقبة إن شهادة اللقاطي هي مرحلة ضمانته أو مرحلة كرجورة إن سيف عن لغة فائدته نبرني وحارمها العينية دولة ذكية أو النقطي تمكن لبعض يتذكر الصوماليين مرتين جلسي وحوتيان بلد والمالية جارية إسلام مرهان تانا حرم تيدي النقطي حرم الصوماليين يتذكر الصوماليين حرم إليه ونقول لقد نسوه تذكر الصوماليين دولة ذكية وحيقين وحيقاضي دفاع يدربسك ضلك يدرك الصوماليين سيدا ذاتر وحان لنا يقولوا مع سيدي وأنا بعد علينا sidoo kale waxaan jecelahay hay'adaha xuquuqul insaanka gaar ahaan Human Rights oo iyaduna si aad u ballaaran oo baaxad ogaada uga soo saartay bayaan ay ku cadaynayso dacatiga iyo jariimooyinka ka dhacay welina ka socda gobolka la yiraahdo Ogaadeniya ama Soomaaliya galbeedka waxaan u soo jeedinayaa madaxda wadamada in ay tixgeliyaan riboodka hay-adaha xuquuqul insaanka oo dadka dhibaatada gaadhay si fiican u soo diyaariyo xaqiiqo ya taas markaan ka soo laabto walaalayaal mahadcelintayda xaaladayda waxaan ku soo dib ugu soo laabanayaa tardaan haddaan maanta oo dhan wado saa u shaqayseen iyo sidaad u difaacdeen ummadda Soomaaliyeed qof walba oo Soomaaliyana uu maanta isku hadlaynayo dadkiisa iyo sida ay u tiitiyayaan sida ay u garab taagan yihiin waxayna gelinaysaa geesinimo iyo raganimo iyo dadaalkeen inaan sii kordhino waxaan jeclahay in aan dib ugu soo laabto mar kaleeto oon soo bilaabo mahadcelintii dadka Soomaaliyeed walaalayaal idinkoo mahadsan waxaan idin cadaynayaa idinkana idinkula dardaarmay kow idinka waxaad tihiin dad Soomaaliyeed oo danu ka dhaxayso waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dhalasho iyo dhiig iyo dalba wadaagta inay midoobaan gacmaha isqabsadaan wax wada qabsadaan is-aaminaan wixii xurguf iyo walaalguba ee qulubtooda ku jirana inay iska dhaafaan isna cafiyaan sidoo kale waxaan jeclahay in aan u soo jeediyo madaxda Soomaaliyeed inay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed madax cadaalada oo ula dhaqanta si daacad ah isku mideeya isu keena wanaagooda ka shaqeeya sidaa darteed waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed xilka aad maanta haysaan biri waad ka tegaysaan waxaana idinka hari doona raad taariikheed oo noloshiina ku yeelan doona raad aan ka hari doonin qof walba wuxuu maanta kaga tagay dadkiisa iyo wuxuu kala dhaqmahayaa waxay noqon doonaan raad lagu xusuuso taariikheed sidaa darteed dadka Soomaaliyeed maanta waxay idinka baahan yihiin hiil iyo midayn iyo isu keenid iyo in la cafiyo inay iscafiyaan si daacadana u maamushaan taasay idinka sugayaan haddii kale waxaad yeelan doontaan raad foolxun oo weligii idinku reeba muruga aan idinka hari doonin intay hadda waqtiga u fursad baadaystaan madaxda ummaddu waa inay ka faa'iidaysato fursadda dadkoodana daacad la dhaqmaan ilaahayna ka yaabaan wixii xumaanahay ay wadaan ay ka joogaan markaan saa leeyahay maaha inaan tilmaamahayo guruub iyo dad gaara maaha ee dadka Soomaaliyeed madaxdiisa oo in badan oo kamid ah calasha ay ka timaado inaasaan dhiila waxaan jeclahay in aan wax yar ka taabto madaxda dowladda Somaliland iyo Puntland dowladda Somaliland iyo madaxweynaheeda Muuse Biixi aad baan ugu mahadcelinayaa siday isugu tashadeen siday dadkoodii iyo deelkoodii u mideeyeen sida ay ammaankiisa u sugeen ay gaadsiiyeen doorasho qof iyo cod ah oo lagu kala badiyo halleeri sidaa darteed dadka kale waxaa la gudboon ee Soomaaliyeed iyo maamuladooda
inay walaalahood kaga daydaan horumarka ay gaadheen iyo dadaalka ay sameeyaan waxaan leeyahay marka labada madaxweyne ee deriska ah ee dadkoodu walaalaha yahay dhibaatada waayahan ka dhaxaysay ee ka jirta tukarraq labadaa oday waa laba oday oo dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay aad iyo aad rag caqli badan yihiin oo aqoon-yahano waxgala hase yeeshee waxaa nasiib darro ah hankii laga filayey iyo maanta halka ay dhigeen dadka meelaha qaarkood waxay isku haystaan 1 kiiloomitir oo la yidhaahdo tukarraq waxaa ku dhimatay dhalinyaro walaalaah oo gabdho iyo ragba leh yaa ku dhimatay waxaa ku gablamay waalid oo ilmihiisa ku dhintay waxaa ku agoontoobay carruur yaryar oo Soomaaliyeed waxaa ku rajoobay carruur yaryar oo Soomaaliyeed sabab la isugu qabsada hal buqcad oo kamida dalkii Soomaaliya oo dad walaalaha la isugu dilana ma garanayno sidaa darteed waxaan dhihi lahaa madaxdaas labada gobol labadaas dowladood in ay ka baxaan dhibaatadan iyo dagaalka inay ka saaraan dadkooda inay u ogolaadaan deegaanka dadkii joogay ee ka barakacay noloshoodiina dhulka ku dhacday aad u burburtay inay mar labaad dib ugu soo noqdaan dalku deegaankoodii oo dib u dhisaan kaaladahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxbarashadii ilmahooda dib inay u dhisaan intaas waa in aan ka codsanayno waan qabnaa dhammaanteen inaan sidaa uga codsanno innagoo isku mid ah in ay meelaha khilaafaadku ka jiro iyo xumaantu in laga wada xalliyo si walaalnimaa loo xalliyo waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wixii khilaafa iyo kala qaybsanaana inay ku xalliyaan hab nabadgelyo iyo wada hadala inay ku xalliyaan aad baan u jeclahay waana ku codsanayaa waxaan ku soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya ma jiro oo dhibaato ah ha yeeshee waxay ku midaysan yihiin oo ognahay waxaa jira cibaadada Ilaahay waxaan ahayn ku midaysan yihiin inta badan waxyaabo badan way isku khilaafsan yihiin wax badanna way ka midaysan yihiin laakiin arrinta mar walba khilaafkeeda taagan ee Soomaali dhex taala waa arrin dunuub lagu dhammaanteed waa arrin dunuub ku dadka wada waa arrin foolxumaan sidaa darteed cafiis iyo masaamaxa in la soo wafiyo idinkuna aad ka bilowdaan intiina fadhida yaan ka rajaynaynaa aanu soo noqdo aniga iyo xaalad anigu sidii aan ugu taagnaa dadka Soomaaliyeed 3 qodob ama 4 qodob ayaan idin caddaynaya oo ku shaqaynayo qodobka koowaad inaan dadka Soomaaliyeed ula dhaqmo si cadaalad ah oo sinaan ah oon lahayn gobolaysi qabyaalad iyo qof jeclaysi midna inaan ula dhaqmo dadka Soomaaliyeed laba inaan qayb ka noqdo xal u helidda iyo isu furidda qulubta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha kana shaqeeyo noloshayda inaan ka shaqeeyo dadka Soomaaliyeed inuu walaaloobo gacmaha isqabsado taasna waa qorshahayga saddex waxaa ii qorshe ah sidaan horeyba ugu taagnaa in aan raadiyo dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo xor ah oo ka madax bannaan wax kasta oo gumaysi iyo cadaadis iyo dadka hoosamaaraasha ma aqbali doono waxaan aaminsanahay in wixii khilaafaada iyo colaad ee ka dhaxeeya ummadaha dowladaha urur iyo dowladda in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadala oo ummadda la gelinin dagaal aan dhammaanayn taa waan aaminsanahay in lagu xalliyo hab nabadgelyo ah iyo wada hadala wixii khilaafa ee ka dhaxeeya dowlado iyo ururo oo inaga huseeya waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan iyadana ugu baaqo ra-iisul wasaaraha Itoobiya maanta wuxuu waajahay in uu ka gaadho xal iyo go'aan fiican khilaafkii dheeraa ama khilaaf maaha dagaalkii dheeraa ay soo wada galeen shucuubta Itoobiya iyo ta Soomaaliyeed wuxuuna ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu go'aan rasmi ah inuu ka gaari doono sidaa darteed waxaan ku boorinayaa inuusan arrintaa ka soo noqonin ee ka dhabeeyo xaaladda ka taagan colaadda geeskan Afrika ee Soomaaliya oo dhan saamaysay ee Itoobiya saamaysay ee kacdoonnada dhalisay ee abuurtay khilaaf iyo xataa Soomaali gudaheeda in waxyaabo ka soo dhashaan ee shisheeye Soomaaliya soo gelisay waxaasoo dhan waxay ka biqnahayaan xuduudtoodu ay tahay gobolka adduunka u yaqaano Ogaden region ilaa khilaafkaas
إلا أولاد هالك كتير تقول كان حاليا ورجع تبدأ سيدا درت الله يقول كاس حل جرب وحن تعالى هاي والله يا يدينكو مع صد يدينكو روتي أن مرور بوجهي من فرحة جليليان إن أنا يدينكو باغو إن أنا أول طريقه إن هو لما أنت أول شيء وعطيني ورانكم عينيا مدنمو سومالينمو والالنمو ورفيوري waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo saddex heesood in la qaado kow Soomaaliya toos laba Allah wey dikii aaminaa awood leh ummad waliba aayaheeda inay garato iyadaa leh arnigayow markaa uurka hooyaday ifka uga soo baxay laydiisa udugelin kii waan qariyow arnigayow midka kaa hooseedee addoonsiga la jira sowmooga isagu inuu ku leeyahay in intaa la qaado waan jeclaan lahaa ballanqaadkayga shaqadaydu waa taa kama dhex muuqan doono koox gaar ah maamulada Soomaaliyeed layguna tuumi maayo kuma milmi doono waxaan u taagnahay Soomaalinimo waxaan ka shaqaysaa nin sheegay waxaan tegi doonaa dadka Soomaaliyeed meel kasta u degan yahay Kismaayo inaan tago حمر إن أنت رو إن عندنا أي سورة كذو بلدوين إن كبرنا هؤلاء إن عروسا أما كبرنا ربوس مريض إن أنت رو فصار فصار وتداوهيو إن صوت يريو إن أنت رو لو يعضو إن تجدو أنت رو يرحل يدوميرا إن أنت رو والله يسوي هكذا waxaa jira asxaab inay diyaarinayaan ama aan gacan ka sii doono in la qoro tuug inta badan ku aadan aniga iyo saan soo shaqeeyey iyo taariikhdaydi ka hadlaya halgankii iyo intaan kala socdo howlgalladeedii iyo intaan kala socdo inahaas buug ku aadan yaa waxaa qoraya aqoon-yahano Soomaaliyeed iyadana saasad ula soconaysaan goorta uu soo baxana iyagaan ka sugaynaa Soomaaliya hayso Soomaaliya Soomaaliya shacbiga Soomaaliyeed heesihiyaa yaqaan